heshiiskii 17 Sebtembar waxa uu ahaa heshiis doorasho oo uu gacantiisa ku soo qoray madaxweynaha Puntland kaasi oo markii dambe ka hor yimid sabab la'aan. dadka oo dorosa arrimaha siyaasadda dalka ayaa ku micneeyay in madaxweynaha Puntland iyo dhigiisa Jubbaland aysan diyaar u ahayn in dalka ay ka dhacdo doorasho oo ay ka doorbideen qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni taasi oo natiijadeeda laga arkay caasimadda. maxaa caqabado ah oo ay hordhigeen heshiiskaasi? kala diridda baarlamaanka, hoos u dhigidda awoodda madaxweynaha iyo in la eriyo taliyayaasha ciidamada waxay ahaayeen caqabadihii ugu waaweynaa oo ay xeendhaab kaga dhigeen heshiiska tii oo ay soo ifbaxday in ay gadaal ka riixayaan dawlado shisheeye sida Imaaraadka Carabta iyo Kenya oo iyagu gabi ahaanba diidan dawladnimada sii xogaysanaysa ee dalka. tusaale, caqabadahan ayaa yimid wax yar kadib markii labadaasi madaxweyne ay safarro ku kala tageen waddamada Imaaraadka Carabta iyo Kenya. baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo si dhow ula socday carqaladeynta labadaasi madaxweyne iyo tanaasulaadka madaxweyne Farmaajo ayaa meel mariyay sharciga jiheynta doorashooyinka oo dalka muddo 2 sano ah ku hogaaminaya doorasho qof iyo cod. haddaba waxaa dib loogu laaban doonaa heshiiskaasi oo baarlamaanka Soomaaliya mar kale uu oggolaaday in saldhig uu u noqdo doorashada maadaama Muqdisho ay wax uga dhaceen sidii ay rabeen labadaasi maamul ee Puntland iyo Jubbaland. balse dawladda federaalka oo garasiisan muhiimadda ay leedahay badbaadada shacabka iyo nabadgelyada caasimadda ayaa muujisay tanaasulaad fara badan iyadoo madaxweynuhu uu si degdeg ah u hortegay baarlamaanka si xaqul ay ku keenaan. su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxay noqonaysaa tilaabada xigta oo madaxda Puntland iyo Jubbaland ay u qaadayaan kulamada doorashooyinka ee haatan gacanta loo geliyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya? waa su'aal jawaabteeda si weyn loo dhowrayo. sawirada aan wanaagsaneyn ee maalmihii la soo dhaafay laga bixiyay dawladnimada dalka ayaa waxaa ka mid ah in la siyaasadeeyay ama la qabiileeyay ciidamadii qaranka oo loo adeegsaday horinta colaado sokeeye. waana tilaabo ugub ah oo lagu soo kordhiyay nidaamka dawladnimada dalka muddadii ugu dambaysay. siyaasiyiin ayaa iyagu shaki gelinaya in Muqdisho ay u qalanto inay sii ahaato caasimad iyagoo halbeeg kaga dhigaya qalalaasihii ka dhacay caasimadda sida madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole. haddaba siduu u shaqaynayay nidaamka dawladnimo 4 sano ee la soo dhaafay? dawladda federaalka ayaa gaartay guulo waaweyn oo la xiriirta horumarinta ciidamada, maaliyadda, dayn cafinta iyo weliba sugidda amniga. waxaa la dhisay ciidamo tayo leh oo qalabkoodu u dhammaystiran yahay, tababar sarana leh, kuwaasi oo awood u leh fulinta howlgallada nooc kasta oo ay yihiin. balse siyaasiyiinta mucaaradka ayaa bilaabay in ay qabiileeyaan ciidamadaasi taa oo ah bilow la filan karo in mar waliba ay dhacdo haddii xitaa iyagu ay ku guulaystaan qabashada hoggaanka dalka. 4 sano ee soo socota waxaa adkaan doonta in miiska wadahadalka la isku fahamsiiyo danaha siyaasadeed ee jira. taa beddelkeeda waxaa qoraygu uu noqon doonaa midka dhinac waliba uu ku meelmariyo danihiisa siyaasadeed sida laga bartay casharada siyaasadeed ee laga dhaxlay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee caasimadda. haddii siyaasiyiinta mucaaradka uu ka soo dhex baxo ninka hoggaaminaya dalka 4 sano ee soo socota waa inuu diyaar u yahay inuu wajaho xaalado badan oo khatarteeda leh sida ciidan la qabiileeyey ama la siyaasadeeyey oo lagu tilmaamay in ay ka soo horjeedaan qorshe markaasi taagan. ilaan waa mid ka mid ah casharadii uu horay u soo dhigay oo dib uu u akhriyi doono. dawladnimada ayaa ah haybadda ugu sarraysa ee dali uu leeyahay, taasi oo lagu qadariyo laguna ixtiraamo madaxbannaanidiisa, horumarkiisa iyo siyaasaddiisa. dawladnimadu ayaa waxa ay leedahay in dadku ay isku kalsoonaadaan, isna aaminaan maadaama ay tahay hal dalad oo ay wada harsanayaan ummad markaasi jirta. waxaa jira caqabado nooc waliba leh oo kaaga imaanaya siyaasadaha dibadda kuwaasi oo aan rabin hori socodkaaga iyo in aad noqoto dal isku filan dhaqaale ahaan iyo amni ahaan. qofku markuu uu ka mid yahay dawlad waxa uu leeyahay heybad u gaar ah oo ay ku xambaarayso dawladnimada, waayo waxa uu gacanta ku hayaa sharciga iyo kala dambeynta. balse haddii aad ka baxdo xeendhaabkaasi waxaad noqonaysaa mid halgankiisa halbacaada ku lisay. saadiq john
waxa uu ahaa taliyihii qaybta booliska gobolka Banaadir. waxa uu ahaa mid ka mid ah taliyayaasha ugu adag dhanka dawladnimada. waxa uu saaxiib la ahaa sharciga. waxyaabihii u gaarka ahaa Saadiq John waxaa ka mid ahaa inuu ahaa qofka ugu dambeeya ee wax laga weydiiyo ogolaanshiyaha ama diidmada xitaa hadduu wasiir uu yahay ka gudbidda kontaroolada magaalada. casharadii ugu dambeeyey ee laga bartay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa ka mid ahaa in geel iyo raashin loo geeyo askari loo isticmaalay hab qabiil oo aag kaga jira Muqdisho iyadoo la iska indhatirayo ciidamada difaaca kaga jira bannaanka caasimadda, taasi oo noqotay dhaxal reeb aan u wanaagsanayn dawladnimada. taliyayaasha u goostay habka qabiil ayaa noqotay mid ka mid ah wadooyinka aan wanaagsanayn ee ku furmay nidaamka dawladnimada. waxaa walwal badan laga muujinayaa mustaqbalka dhow iyo kan fog in beeluhu ay isticmaalaan waddadan oo kale marka ay doonayaan in ay fushadaan dana iyaga u gaar ah oo ay ka leeyihiin dawladda. waxaa maragma doonto ah in tilaabadan ay tahay waddo la furay oo horseedaysa in la qaado mid la mid ah. labada ciidan ee gaarka u tababaran ee Haramcad iyo Gorgor ee ka kala tirsan booliska iyo xoogga ayaa ah ciidamo ay dhistay dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo, waxaana tababartay dawladda Turkiga. waana hanti qaran oo ay ku faani karaan shacbiga Soomaaliyeed. midda la yaabka leh ayaa ah in siyaasiyiin ay ku howlan yihiin sidii ay u kala furfuri lahaayeen oo ay u kala dhantaali lahaayeen. 20 sano dawladnimadii la goobayay, taariikh cusub ayaa qormaysa. waana mid xambaarsan dhiilo. meeshii shalay laga soo bilaabay ayay dib ugu laabanaysaa. haddii aan dib ugu laabanno mudaxileedyadii madaxweynayaashii soo maray dalka sida Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, dawladdii Shariif waxay weerartay hoygii duqii hore ee Muqdisho, allaha u naxariistay Maxamed Cumar Xabeeb Maxamed Dheere, ilaa heer xabsiga ay u dhaadhiciso. mana jirin tilaabo liddi ku ahayd oo ay ku dhaqaaqeen dadkii taabacsanaa Maxamed Dheere. sidoo kale xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa iyana dharaar cad la weeraray hoygii guddoomiyihii degmada Wadajir Axmed Xasan Cadow Axmed Daaci oo isaguna dawladdaasi ay xirtay. waxaase xusid mudan in ciidamadii weeraray rasaas ay ooda kaga qaadeen gurigii guddoomiyaha haatan ee gobolka Banaadir uu ka deganaa degmada Wadajir Cumar Filish, inkastoo wax khasaare ah aysan ka dhalanin. iyadoo sidoo kale xabsiga loo taxaabay Sheekh Xasan Daahir Aways. ciidamada ammaanka ayaa jirdil xoog leh u geystay odayaashii hawiye ee tixgelinayay isu soo dhiibista oo ay u arkayeen in ay tahay tilaabo horey loo qaaday, iyana ma aysan dhicintaa. waxaana reerahoodu ay awood u lahaayeen in ay sameeyaan tilaabooyin la mid ah kuwa haatan socda, laakiin ixtiraamka loo hayay dawladnimadii curdanka ahayd ayaa ka weynayd. midda keliya ee dadka dhabanahayska ku reebtay ayaa ah hadallo ka soo yeerayay qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee weli ku baaqaya hurinta colaado sokeeye. Alxaaji Muuse Suudi Yalaxow ayaa dhowaan ka dhawaajiyay hadallo u muuqda dhiilo colaadeed, waxaana ka soo yeeray hadallo aan kala saaraynin shakhsiga madaxweynaha ah ee isagu iska tegaya iyo dawladnimada dalka, taasi oo siyaasiyiinta qaar ay ku tilmaameen inay dib u celinayso maskaxda malaayiin Soomaaliyeed oo u soo joogay marxaladihii burburka. su'aalaha isweydiinta mudan ayaa ah heshiiskii shalay ay diideen maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland maanta ma ogolaan doonaan? maxaa laga dhaxli karaa qalalaasihii xamar ka dhacay haddiise siyaasiyiinta mucaaradka iyaga madaxweyne noqdaan beri? sidee u xakameynayaan gabadfalada dawladnimo ee haatan ay geysanayaan?